وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وصفيه وخليله المبعوث رحمة للعالمين بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صنائع المعروف تقيء ميتة السوء وصدقة السر تطفئ غضب الرب وصلة الرحم تزيد في العمر أو كما قال صلى الله عليه وسلم الحمد لله كلغن كهدلايا كلا هدلايو انتوا waxaan u baahanahay ma aragtaan inaka ilaahay u baahan ilaahay inaka u baahan diinta islaamkana inaka u baahan kalluunka noloshiisa ilaahay wuxuu dhaxgeliyay waa biyaha dhaxdooda weeyaan hadduu biyaha ka dhaxbaxo uu dhimanayaa bani aadamkana cizigooga sharaftooda aakhiradooda adduunyadooda meeshay ku hagaagaysa ilaahay waxuu ka yeelay waa diin hadday diinta islaamka dadku ay ka dhaxbaxaanna way dhimanayaan marka kulligan innaka u baahan ilaahay innaka u baahan salaadan tukanay innaka u baahan diinta inaan maqalo oon isku baraarujino oon ka wada hadalno innaka u baahan rasuulkeeni udgoona calayhi salaatu wassalaam ibn mascuud radia allahu canhu ayuu ku yidhi qur-aanka dusheeda ku akhri waa nebi maxamed calayhi salaatu wassalaam ayaa ardaydiisii ka mida ka dalbanaya qur-aanka inuu dushiisa ku akhriyo marka cabdillaahi bnu mascuud radia allahu canhu wuxuu yihi aqra'u calayka wacalayka unzil yaa rasuul allah maadaan dushaadan qur-aanka ku akhriyaa qur-aanku aduuba kugu soo degee waxau nabigeenu calayhi salaatu wasalaam uu ugu jawaabay innii uxibu an asmacahu min hayrii qur-aanka waxaan jecelahay inaan dadka kale ka dhegaystee dusheeda ku akhri buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam qur-aankuna waa wacdigii ilaahay waa bayaankii ilaahay tabaaraka wa tacaala uu khalqigiisa u jeediyey weeyaan haddii qur-aanka dushaada lagu akhriyo ama qur-aanka adigu aada akhrisanaysid ama meel ilaahay wacdigiisa lagu hayo aada maqasho waxaad ogaataa qur-aanku waa wacdiga ilaahay waa wacdi waa bayaan waa balaaq hada balaagu linnaas waliyundaruu bihi waliyaclamuu anama huwa ilaahu waaxidu وليذكر أولو الألباب هذا بيان للناس قرآنك وبيان وموعظة markaan qur-aanka akhrisanaysid ama qur-aanka dushaada lagu akhrinayo waxaad ogaataa bayaanka ilaahay uu khalqiga u jeediyey ayaa adiga dushaada lagu akhrinaya marka nebi maxamed calayhi salaatu wassalaam waxau ugu jawaabay ardaygiisii innii uxibu an asmacahu min hayrii waxaan jecelahay qur-aanka dadka kale inaan ka dhegaystoon ka maqlee dusheeda ku akhri buu nebigu yihi calayhi salaatu wassalaam faqara'tu calayhi suurata annisaa suuraddaasaan dushiisa ku akhriyey buu ihi nebiga dushiisa ilaa laga gaadho aayaddaas fakayfa idaa ji'naa min kulli ummatin bishahiidin waji'naa bika calaa haaulaa'i shahiida markaan halkaa uu maraayo
ayuu nebigu yihi xasbuka al'aan hadda qur-aanka halkii aan rabay aada gaadhsiisee intaasaa igu filana jooji buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam waxaa kugu filaatay intaas deedna saxaabigii wuxuu yihi nebiga ayaan xaggiisa daymooday waaba nebi maxamed sal allahu alayh wasalam oo labadiisaa indhood maaragtaan ilintu ay ka daadanayso inaku maanta qur-aankii waan maqlaynaa wacdigii waan maqlaynaa laakiin isbedelkii uu yaryahay aayad qur-aanoo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam dushiisa lagu joojiyey ayaa nebi maxamed uu la ilmeeyey fakayfa idaa ji'naa min kulli ummatin bishahiidin xaalku sidee buu ahaan doonaa maalinka qiyaamaha markaan ummad walba aan keenno iyada iyo nebigeedii oo maragga ku furaya inuu diintii risaaladii uu gaadhsiiyey adigana markhaati aan kuu soo joojinno xaalo aada ku marag furi doonto ummadaada inaad diintii aada gaadhsiisay ana nebigeenu calayhi salaatu wasalaam qur-aanka ayuu tadabburayay qur-aanka ayuu ka fikirayay qur-aanka markuu akhrisanayana uu ooyi jiray oo caaisha radia allaahu canha waa tii tidhi salaata leylka markuu nebigu tukanayo rakacad keliyuu nebigu ku tukanaya suuratu lbaqara iyo ala cimraan iyo suuratu nisaa sarajooga dheeridiisa ayaa nebigu lugihiisu ay bararayeen deedna markaabay ku tiri lima tasnacu hada yaa rasuula allah yaa rasuulallah maxaa sida naftaada aada ugu kalifaysaa ilaahay adiga macsuum buu kaa dhigo dembigii horena waa kaa dhaafay kii dambena waa kaa ilaaliye markaabuu nebigu ugu jawaabo wuxuu ku yidhi afalaa uxibu an akuuna cabdan shakuura miyaanan jeclayn inaan ahaado aniguna addoon rabbigiisa ku shukrinayo ku mahadnaqaya aayad ka hadlaysa ilaahay tansiihdiisa hadduu marana nebigu ilaahay buu nasahayey aayad ka hadlaysa maaragtaane jannada hadduu dul marana jannadu ilaahay weydiisanayey aayad naarta ka hadlaysa hadduu nebigu iskortaagana naarta ayuu ilaahay ka magan galayey aayad ka hadlaysa ilaahay weynigiisa hadduu marana ilaahay buu nebigu weyneynaya calayhi salaatu wasalaam maalin maalmaha ka mid a salaadii subax ayaa la gaadhay sunnaha nebigu sal alla alay slam aqaladiisu kusoo tukani jiray inaku maanta salaada farad iyo sunnaba waxaan la imanay maaragtaan waa masaajidii aqaladeeni nasiib maxaan u yeelnay salaada sunnada salaad sunna ah uu qofku tukada buu nebigu xadiid ku yidhi salaadu qofku aqalkiisa ku tukanaya ayaa ugu fadli badan ilaa salaada faradka mooyaane salaada sunnayaasha sunnaha ugu fadli badan waa sunnahee waa sunnaha lagu tukado xaafadaha faradka mooyaane faraa'idana masaajida loogu talagalay sunnadana waxaa fadli badan sunnaha aqalka lagu tukanayo si aqalkii uu noqdaa aqal masaajidka cilaaqa la leh hadda aqalka salaada lagu dhex tukanayo oo qur-aanka lagu dhex akhrisanayo oo dadka aqalka jooga mar walba ilaahay ay aqalka ku dhex xasuusanayaan oo aakhirada ay aqalkooga ku dhex hadal haynayaan aqalkaasi wuxuu noqonayaa kalmasjid laakiin aqaladii haddii aanan ilaahay lagu dhex xusaynin salaadna aan lagu dhex tukanaynin diinna aan lagu baranaynin waxau noqonayaa aqalkaasi qabri banaanka dul yaaluu noqonayaa laa tajcaluu buyuutakum maqaabira aqaladiina qabuuraha ka dhigina buu nebigu yihi sal alla alay wasalam imaam atirmidi raxmat ullaahi calayhi wuxuu yihi aqalka haddaanan salaad lagu dhex tukanaynin salaadee laga wadaa marka haweenkuna farad iyo sunnaba inay aqalada ku tukadaan baa u fadli badan raggana faraa'idana inay masaajida ku gutaan sunnaha ay tukanayaanna sunnaha ugu fadli badan buu nebigu yihi waa kay aqalka dhexdiisa maaragtaan ay la tegayaan aqalka kusoo tukanayaan haddaan aqalka salaadba lagu dhex tukanaynin qur-aanna lagu dhex akhrisanaynin diinna aan lagu dhex baranaynin ilaahay tabaaraka wa tacaalana aan lagu dhex xasuusanaynin aqalkaasi wuxuu yihi imaamkaasi waa qabri banaanka dusheeda ka dhisan dadka ku dhex jirana waa dad dhintay la mid yihiin buu yihi meesha laga dhintaa laga noolaada maaha jirkan dhimashadu runtu waa ta qalbiga weeyaan qalbiga marka nabigeenu calayhi salaatu wasalaam sunnaha wuxuu kusoo tukanaya aqaladiisa salaada faraa'idana wuxuu la iman jiray masaajidka deedna bilaal baa nebiga u tago ku yidhi yaa rasuul allah salaadii baa taagan oo jamci way ku sugayaan
markaabuu nebigu soo kacay calayhi salaatu wasalaam isagoo indhihiisa ay lilmadu ka daadanayso meeshuu nebigu ku sujuudayana ay ilintu ay qoysay. daedna markaabuu nebigu ku yidhi yaa bilaal xalay toole aayadahan qur'aanka ayaa dusheeda ku soo degay waylun liman qara'ahaa walam yatafakar buu nebigu yihi sal alla alay wasalam. aayadaha ninka akhriya ee aanan tadabburin ee aanan ka fikirin ee maskaxdiisa aanan ka shaqaysiinin uu hoogay buu nebigu yihi uuna khasaaray qofkaasi. awaakhir suuratu ala cimraan soo ma ahayn. awaakhir suuratu ala cimraan ina fii khalqi الsamaawaati wاlardi waاkhtilaafi اlleyli wالnahaar laaayaati liuli اlalbaab aladiina yatafakkaruuna fi khalqi الsamaawaati wاlard rabbana ma khalaqta hada baطila subxaanaka faqina cadaab الnar aladiina yadkuruuna allaha qiyaama waqcuuda wclى junuubihim wayatafakkaruuna fi khalqi الsamaawaati wاlard rabbana ma khalaqta hada baطila subxaanaka faqina cadaab الnar. aayadahaasaa dusheeda kusoo degay buu nebigu xalay toole yidhi. aayaduhu maxay ka waramayaan markaas? ina fii khalqi الsamaawaati wاlardi waاkhtilaafi اlleyli wالnahaar, samaawaadka iyo araadiinta abuurkooda iyo habeenka iyo maalinta isgadaal maraya, isbedelaya, iskaxaynaya. maalintiibaa yaa joogtay, habeenkiibaa imanaya, maalintiibaa tegaysa, maalintiibaa imanaysa, habeenkiibaa tegaya. nolosha adduunka dhanba waa habeen iyo maalin isbedelaya. bal wax u dhexeeya sheeg, wax saddexaad ma jiraan? waa habeen iyo maalin. hadday habeentahay saad u noolaan lahaydna nebi maxamed baa kuu jideeyey sal allahu alay wasalam. hadday maalin ay tahayna saad maalintaa u gudan lahayd, aada noloshaada u gudan lahayd, nebi maxamed baa kuu jideeyey. deedna samaawaadkan eeg, ilaahay dushaada uu dhigay, oo dhulka eeg, oo khalqiga samaawaadka lagu dhex abuuray fiiri. deedna ilaahay xasuuso. yadkuruuna allaha qiyaama waqucuuda, ilaahay bay xusayaan iyakoo taagan, iyaka oo fadhiya, iyaka oo jiifa. oo maxay leeyihiin? rabbanaa maa khalaqta hada baطila, ilaahu cirkan iyo dhulkan iyo khalqigan dheeldheel umaad abuuran bay leeyihiin. subxaanaka ilaahu xumaan adaa ka hufan, nuqsaan adiga ayaa ka hufan, ee faqinaa cadaab الnaar, ilaahu cadaabka naarta naga dheeray oo naga badbaadi bay ku ducaysanayaan. 24 saacadood ee ku soo maraysa, bal saacad walba hal saaco, saacaddiiba hal mar ilaahayna xasuuso, aakhiradana xasuuso. waad noolaan, meeshaad ka noolaanaysid qalbiga noqona ogow. meesha dadku ay ka dhintaan ama ay ka noolaadeen waa qalbiga. marka natadabbar, waa inaan ilaahay xasuusanaa mar walba. afalaa yatadabbaruuna alqur'aana am calaa quluubin aqfaaluha. qur-aanka maysan fiirinayn baa ilaahay leeyahay, mise qulubtooda ayaa qafilan. oo qur-aanku muxuu ka waramayaa? naba-u maa qablakum buu ka waramayaa. waxalli wixii inaga horeeyey nebi aadan abuurkiisii ilaa joogadaada maanta adduunyada wixii dhacay buu qur-aanku ka waramayaa. waalkhabaru maa bacdakum, waxalli waxa adduunka inaga dambeeya dabadeed gadaasheenna iman doona ayuu qur-aanku ka waramayaa. waalxukmu maa baynakum, ininka dhexdiina buu nebigu leeyahay waxay aad xukun aad dhexdiinna uga baahnaydeen, hadday tahay xaqa walaalka aad ku lahayd, hadday tahay xaqa jaarkaaga aad ku lahayd, hadday tahay xaqa aabbahaa kugu lahaa, hadday tahay adigu xaqa waalidka aad ku lahayd, hadday tahay mas-uulka raciyadda xaqa ay ku lahayd, hadday tahay raciyaddu mas-uulka xaqa uu ku lahaa. qur-aankaa waxaasoo dhan ba ka warramaya. huwa alfaslu laysa bilhazli, waa fasl, waa xukum ilaahay xaggiisa ka yimid. kaftan qur-aanku iyo dheeldheel ma galo. akhriskiisii waa cibaado, eegiddiisii waa cibaado, ku dhaqankiisii waa cibaado, barashadiisii waa cibaado, bariddiisii waa cibaado, fidintiisii waa cibaado, xukunkiisii waa cibaado. man camila bihi ujr, ninka qur-aanka ku camal fala ajar baa ilaahay uga qoraya.
waman xakama bihi cadal ninka qur-aanka ummad ku xakumana uu cadaalad falay waman dacaa ilayhi hudiya ilaa siraatin mustaqiim waman qaala bihi sadaq ninka yidhahda qur-aankaas sidaa yidhi run buu sheegay waman dacaa ilayhi hudiya ilaa siraatin mustaqiim ninka dadka ugu yeedha xagga qur-aanka yidhahda war qur-aanka han raacno war shareecadeenna han baranno war diinteenna han ku camalfalno war diinteenna han ku dhaqanno war diinteenna ummadda han barno war diintaa dad kaa dhigaysa qur-aanku dad buu kaa dhigay dad waman dacaa ilayhi hudiya ilaa siraatin mustaqiim ninka dadka qur-aanka xaggiisa ugu yeedhaa dariiqii mustaqiimka ku dhacay baa iyuu nebigu yuri sal alla alay wasalam marka qur-aankaa ilaahayna siiyey ummaddii qur-aanka ilaahay naga dhigay innaka nabigeena moxamed calayhi salaatu wasalaam oo keligii meel fadhiyu jibriilla ag taagan yahay ayuu nebigu ka maqlay xagga samada shanqadh sawd markaasuu argagaxay jibriil buu nebigu weydiiyey calayhi salaatu wasalaam jibriil baa ku yidhi albaab samadu ay leedahaa maanta la furay maanta ka horna albaabkaa lama furin samada malag baa ka soo daadegay maanta malagaasi maanta ka horna adduunyada muusan iman albaabkaana maanta la furay malagaana maantuu adduunka yimiday malagii baa nebiga salaame calayhi salaam markaasuu yidhi abshir binuurayni uutiitahumaa yaa muxamed laba nuur baan kuu sidaayo ilaahay igu kaa soo dhiibay bishaaraysa baa lagu yidhi imise nuur laba nuur lam yu'tahumaa nabiyun qablaka adiga hortaa nebi labadaa nuur ilaahay uu siiyey oo nasiib u yeeshayna ma jirin baa lagu yidhi khawaatima suurati albaqara wa suuratu alfaatixa labada aadood ee albaqaro ugu dambaysa ama suuradda albaqara awaakhirkeeda iyo suuratu alfaatixa waa laba aayadood waa laba ilaahay uu nebi maxamed uu ka siiyey khasaa-inta carshiga hoosteeda taalla intoo la furay baa nebiga looga soo saaray qur-aankii kariimka malaa'igtu ay soo wadaan ayaa laga daba keenay daedna markaasaa baytulcizi la dhigay malag ayaa si gaara intuu nebi maxamed ugu yimiday labadaa u keenay oo kune abshir binuurayni uutiitahumaa bishaarayso laba nuur baa ilaahay igu kaa soo dhiibo adiga lagu siiyey adiga hortaa nebi nasiib u yeeshay in la siiyana ma jirin waa labadee khawaatima suurat albaqara iyo suurat alfaatixa weeyaan xaraf ka mida ilaahay baahidaada xaraf ka mida ilaahay kuma weydiisatid khayr adduunye iyo khayr aakhira waxaad doonaysid ilaa ilaahay waa kuu aqbalaa ducada waa lagu siiyaaba lagu yidhi ku ducayso baahi ma lihid war baahi ma lihin ma lihidina miyaa baahi waan buuxnaa soo maa haadhade baahidaada de waa kana ku ducayso maxaad meel kale indhaha ugu taagay sanadkiiba dhowr kun baa jaamacada ka soo baxaysa dibloomkan shahaadadan aad gosha lagu soo geliyey ilaahay kuu dhowayn mayse ogow ilaahay waxaa ilaahay aad ugu dhowaanaysa waa qur-aankaas waxaa xaajadaada lagugu daboolaya waa qur-aankaas waxaad adduunyadaada iyo aakhiradaada kuugu hagaagayso waa qur-aanka raac qur-aanku dad buu kaa dhigay dad xaraf ka mida baa nebiga lagu yidhi ilaahay tabaaraka wa tacaala kuma baridid oo baahidaada ilaahay uguma sheegatid ilaa hee wixii khayr adduunye iyo khayr aakhiro aad ilaahay weydiisateed ku alla beraday labadaa xuruuftooda xaraf ka mida aad ilaahay ku barido ilaahay ducada waa kaa aqbali waa lagu siin baa nebiga lagu yidhi sala allahu calayhi wasalam balaayaa soo socota ku ducayso suuradda faatixada ilaahay ku bari noloshii baa cidhiidhi kugu noqotay suuraddaa ku bari ilaahay ku ducayso muraad baad leedahay
كدو عيسو أواخر سورة البقرة إلهي كويدي سباهي دادا الباب كإلهي قرع هقوصا إبقى قددك الزمن كان قوص بعد شبه قوصا نابا قول أنت أوصنان تكني حبايي ما بيريان ويكون بيريان دعاء ستد صدحهم دعاء مدو دعدا إما بلايك وصو سعوتين لغاقا دبالو لغاقا الليحيو إما إن الدنيا نوحي الله عاد ويدي ستي إلهي هذا كسيو إما إن آخرك لغوغو دغو آخر لغوغو دغو دب لغوغو دغو فالقرآن كينا المركز دي بقول نقونينا إن شاء الله هذا إن شاء الله هذا قرآن كينا برانينا قرآن كان تدبر يتفكر كو آخر سنينا صحابة رسول رضي الله عنهم قرآن كاسا يكون راعين إمام بيكدكتين قرآن كإمام dhaqan hadday tahay cibaado hadday tahay akhlaaq hadday tahay tarbiyadda awlaadda hadday tahay sida mujtamaca loola dhaqmaya hadday tahay sida qoys loola dhaqmaya hadday tahay qur'aankaa bay raaceen iyo xadiista nabigeena sal allahu alay wasalam yatadabbaruun عمر بن الخطاب الله رالي كان نقضه أدب قرآن كأفير سنجر موقته مسكيت النبي جينا عليه الصلاة والسلام وهابين سوق عليه ساعده الدنبه أمير إسقوه لأنه مسؤولة وأمدا كم مسؤولة وعبادتي فرائضها هيدنتو مال ساري ولي بكود دالايا إنه نوافشنا ولي مادو مسؤول هبانكي بحود هبانكي هدان سيحدنا حق إلهي يقول هابان ضيعيا مالكي هدان سيحدنا حق أمد يقول هيد بان ضيعيا بودي أمركي إلا أرجع عمر بن الخطاب ومسكيت كالنبي مركو فريستبا هردو دعا هردو دا أي الرديسة يا أمير المؤمنين واد شيء سيحبا اللي يقولي مركاسو هبانكي هدان سيحدو حق أمد يقول هيد بان ضيع حق إلهي يقول هابان ضيعيا لأن مؤمن كهابين كي إلهي بولا مناجودا إلهي بو بريا مالك هدان سيحدان أبو يدي حق يمد يقول هاي بان ضيعي بيدي مسؤول إلى هذا الحد عبادتي سحابين كي إلى سنة يبوها هبين هذا كمدو صوق لمساجد كي نبينا صلى الله عليه وسلم وحوار كير شابة وقيام الليل كي أتاقنا القرآن ككرو قادايا والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع إلى لقى قال إن عذاب ربك لواقع إلهي ودارنا كورن دارتي مركي دعضي وحي لهي إن عذاب ربك لواقع آيات عمر مركو مغلبان ليدي قلكو كدعي الله قاضي أقل كان لقيي لباتن مالمول مدة كدوبو حنون صنابا ليدي حنونك سببت الله حنون صدين اللقم ورقبينه آيات قرآن كآيات قلبي ستابتي بالليدي عمر الفاروق أبي بكر الصديق رضي الله عنه أي النبي قوي مدرسه أويا يا مالين يا أبا بكر ما أنت محل له يسوي شيء مركز سوري نبي الله صورة دنا كوكو صدقتي لبدا عيدود قدام بيساوي قوي نسبودي وأحبك كم تيجي لبدا عيدود فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره مثقال ذرة واحد بن هذاك وقبته وحا أقول أركته وخير انت قفك السماية مالك قيامها أبالك وهلي دونابا إلى هيدي انت إلا يقول الدنبي والشر قفك السماينا آخرا وهلي دونا ما ركتاني أبالك وهلي دونا أبي بكر الصديق وحا أوليه هي لبدنا هذا سورة وقدم بيسا
waxba kamay tegin ba nabi allah seen markaa ku badbaadaynaa markaa buu nabigu yidhi yaa abaa bakar والذي نفس محمد بيده إلهي بان كدارتي برسولك يدي الله نفت محمد أي قعنتي سكجرت أيان كدارتي لو لم تذنبوا حديد ذنبي بأوسن النقاد عين أو ذنبي كد عيو أنا أهين با لذهب الله بكم إلهي انتو أدوية إنك حلو إني قادو أيا إلهي وحا كان لها دون وحو إلهي كان لها أرنب دو الشيدة دنبي انتو دنبي كدعو اي دنبي سميان الهي دنبي داف اي ويديستان الهي دنبي او دافو كواسا الهي كان لها برسولك كو يدي يعني عبسدي markay ka badatay ayaa nabigu xadiistan ku akhrinaya bal siday marna ay naxariista ilaahay aysan uga quusan waxay adduunyada dusheeda ka arkaan oo dhan aakhirada ka dhaxarkeen iyagu تابعين تبوها صلة ابن الأشيم رحمة الله عليه ننوحوها دادي سنتي ويناتي اعتزال بوسمي اعتزال ومحي يعني مجتمعي بكدح بحي عباد مركا وتفرقي مالن كينا الصيام حبين كينا القيام مالن كينا الصوم حبين كينا صلاة الليل مرقا ننا عذير وابا ويمدو كويري إن أنت يذيبان كسيي وانا ku dhisayna wala soo qaaday magaaladii baa la keenay gabadhii baa loo meheriyay markaas ay leeyahay nin caabudu cibaado badan dharna ma haysto markaas lagu yiri qolka xamaamka galo meedha baa lagu yiri dharka jadiidkana soo xidho markaas soo meedhay dharkiina uu soo xidhay cadarna uu soo marsaday gabadhii marka aroosadii baa leeyahay waata qolka ku jirtee ده عروس باتي أرضو هلكا كوه يبالغو يدي سلفكو هبينكا أوغوه الرئيس ليلة الزفاف وحا هديقو كمدا هيد إنا قبضونا ويسقبتو ونكونا ويسقبو قولكا عروسدو أي فرددانا مركو عريسكو أوغو قالو إنو السلام عليكم مركو يدادو إنو الله بركع وتجي يدا إنو صدا ما سمعنا يا هلا لبا قولا كاميرا ولتاين هاي ستبي سوما هندي لا اله الا الله وتان اركين دلنير هلكا بورها هوسودا تاغانو يا ليت ورزيغي اسلامكم بالمان قادنا maxaa ku diiday zayigi islaamka inaad cimaamad madaxa saaratid oo qamiis aad qaadatid maxaa ku diiday سنة عادة حتى عادة إني واحد مودعيني مالن بمالن تقدم بيسو أي كسر دارانا دقن كإسلام ليلة الزفاف صحابة رسولك يدتك وناكسنا لا برك عيت يونكو حريركي سو تجنجري واحد كده كانت هاي ما أنت لقب بلابا مسؤولية دي آبها يهويدا صارنيد أنا كلا سو وريجي noloshaada adduunyadaada iyo aakhiradaada anaa kuugu imaama ana waxaan diyaar u ahay bay ka dhigan tahay ilaahay taacadiisa iyo taacadda nabi maxamed inaan kugu hogaamiye sida labada rakaca aad igu daba tukatay haddee tolo aniga ii daba joog bay ka dhigan tahay sidaasay ka dhigan tahay للنبي وكيلها خير النساء من إذا نظرت إليها سرتك وإذا أمرتها أطاعتك وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك دمرك توقو خير بدن بو نبي قدواتي واتمرك ونكي قد دايموضو كفر حساب رسولك يدي هدو الله الله هذا وناكسن بكولها الله يسا هدو ايقنا وكفر حنيسا وحكفر حيه كولها الله يسا وحكفر حيه مقشين يسا وحكفر حيه تصيسا هدي أمرنا أمر جيسا ويأضيع عيسى هدي كتجنا وكمغنادنا يدنا ودور صوته وإلى سنتهي وويس إلى علينا عيسى ومالك نتاجي ميسو وحي هنتي الديو ودي بتن وإلى علينا عيسى ورسولك يدي برجع الله بدر كعدود السنة قبل هبين قال لتوجنا يو وهدي جي صحابة وهدي جي سلف وحي كده انتهي
haddeeto la adiga ana ku imaama ana taacada ilaahay iyo taacada nabi maxamed baa kugu hogaamine sida salaada aan imaamka kugu ahaa maanta laga bilaabaa noloshaada aniga ku imaamay daba joogsay ka dhigan tahay hada marka salaada la tujiyo ayaa waxa sunnah halka fooda in la qabto fooda ducadee lagu akhrinaya allahumma inni as'aluka khayraha wa khayra ma jubilat alayha somahin khayra ma jubilat alayhi wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma jubilat alayhi waxay ka dhigan tahay waxa ducada macnaheedu waa maxay ilaahu haween gabadhan khayrkeedana waan ku weydiisanayaa khayrka aad ku abuurtayna waan ku weydiisanayaa sharkeedana waan ka magan galay sharka aad ku abuurtana waan ka magan galay halka fooda maxaa loo qabanayaa fooda waxa ku taalabay culimadu leeyihiin waa dhaakirada qofka bini aadanka xasuusta waa meesha laga xasuusto tan maxaaskaagiiba mise waa hooyada haddaad kala garan wada ka waran labada soo khatar ma wama min daabatin illa huwa aakhidun binasiyatiha lidalika ilaahay quraanka wakiilaha thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina aamanu dadka cibaadada ku koray ee salaada ku barbaaray ee masaajida ku barbaaray ee taacada ilaahay ku barbaaray maskaxdoodu marna isku daadan maysa baa ilaahay boqol hadduu gaadho ninka yaraanta ku soo bilaaba cibaadada boqol hadduu gaadho daadiisu caqligiisu waa taam 150 hadduu gaadho caqligiisu waa taam 200 hadduu gaadho caqligiisu waa taam laakiin bilaa cibaado qofka hadduu ku barbaaro 60 jir hadduu gaadho maskaxdiisu waa isku daadataa way shanqari qalow birba ka dhashan qari thumma radadnahu asfala safilin ba utaala lidalika habeenka horeysa gabadha halka in la qabtaa sunnah marka ninkii labadii rakaca markuu kacay ay daba joogsatay say laba rakaca ugu jireen salaadii fajr ba loogu eedaamay inagana ka warrama habeenka aroosada la soo hooyo dumarka ku yar hara ayuu aroosku raagsadaa uu leeyahay war kuwan khayrkooga Allah badiye ka soo baxana soo ma hada ما شاء الله laba rakacadood buu habeenkii oo dhan ninkaas taabiciga salaat ibn ushaym rahmatullahi alayh sidoo ugu jiray ayaa salaadii fajr loogu eedaamay iyaduna waa gabadh caabidada bahayd oo saalixad oo sidiisa oo kale una at-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibat ilaahay baa quraanka ku sheegay nin dhalinyaro ayaa nin sheekh u yimid oo ku yiri sheekh gabadh wanaagsan oo wanaagsan oo dabeecad fiican oo diin fiican ayaan rabaaye sideen ku helay sheeg buu ku yiri marka sheekhi baa ku yiri adigu haddaad noqotid adoon ilaahay oo wanaagsan adoonta ilaahay oo wanaagsan ilaahay baa kuu keenay adu wanaagsanow soo gabadh wanaagsan ma doonaysid ha gabadh diin leh addunya mataac wa khayru mataa'iha almar'atu as-salihah soo nabigu ma wadan nolosha adduunyadu waa raaxayar raaxada yar ee adduunyadana waxa helay buu nabigu yiri ninka ilaahay uu ku hagaajiyay gabadh wanaagsan oo diin leh soo ma doonaysid inaad hesho gabadh wanaagsan ha haddaba adu waa inaad noqotaa adoon ilaahay oo wanaagsan marka ninka nin wanaagsan buu ahaa ilaahay waxa uu keenay gabadh wanaagsan oo habeenkii dhanna salaat leelkii iyaduna aanan u dhan adaankii fajr ka dhacay oo ka baxay aqalka ila masjid subaxdii ba haweenkii ba u yimid aroosadii bal waran waana la ogaa ninkan inuu yahay nin caabid suufi oo aanu jeedin dumar markaas ay ku tiri salaadii aan galay ba ka baxnay tiri adaankii fajrka iska dahay in laysa salaame salaadii aan xiranay labadii rakacadood adaanka fajrka naga bixiyay tiri sagii baa la qabsaday marka oo leeyahay warninkaagan khayr Allah ku siiyay xal aroosada xaleetooda aad sida ugu gashay wuxuu yiri inninka iga gardaran buu yiri markii u horeysay xamaam baad geliseen oo ugu tiraadeen biyaha kulul ku mayro biyihii kulul dhulka qabooba moogtay biyo kulul ba loo dhigay biyihii kulul markaan isku shubay buu yiri naartii baan xasuustay buu yiri cadar iyo dhar cusubna waadii iibiseen oo waadii geliseen cadarna waadii mariseen qol waxaadii geliseen gabadh qurux badan oo la diyaariyay ay dhex taalo qolka markaan galena jannadii baan xasuustay buu yiri
labadii rakaca markaan xidhay buu yidhi jannadii iyo naartii sidaan uga fikirayaa salaaddii fajar loogu eedaamay buu yidhi. qulubteenna allah inoo nuuriyo. salaaddii fajar baa loogu eedaamay tuula leyl wuxuu ku jiray laba rakacadood, mar uu aakhirada mar uu janno xasuusto iyo mar uu naar xasuusto. tafakur تفكروا في مخلوقات الله سومين حديثك ولا تتفكروا في الخالق فتهلكوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. مخلوقات إلهي أجابوا النبي يري بأن كفكر أبو النبي عليه الصلاة والسلام، لكن إلهي ذاتي سها كفكرنا حتى إلهي كفكرتان وترادان إلهي إسقى يا سميي وهذا لك سمي سامو رسولك يري، لأن الشيطان كأورنا كان يا أبو ري الله خلقي يا أبو ري الله kan kale ayaa abuuray allah. marka u dambaysa shaydaanku wuxuu ku oranayaa ilaahayna isagana ayaa abuuray. marka waxaad tirahdaan buu nabigu ilaahay ka magan gala shaydaanka, waxaad tirahdaan laa ilaaha illa allah dhahada, waxaad akhrista suuradda ikhlaaska akhrista. lidaalika nabigu waa kii lahaa makhluuqaadka ilaahay ka fikira buu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam, laakiin ha ka fikirin ilaahay daatadiisa. makhluuqa ilaahay ka fikir waa maxay? kalixaadka loo dhammaystiray eeg deedna ilaahay xasuuso, kalixaadka laga naaqusay eeg deedna ilaahay xasuuso, ka cad eeg deedna ilaahay xasuuso, ka madow eeg deedna ilaahay xasuuso, ka faqiirka eeg deedna ilaahay ku xasuuso, ka xanuunsan eeg deedna ilaahay ku xasuuso, ka ubadka la siiyey eeg deedna ilaahay ku xasuuso, ka bilaa ubadka laga dhigay eeg deedna ilaahay ku xasuuso. khalqigan oo dhan waxaad ka dhex arkaysaa ilaahay aayaadkiisii baad ka dhex arkaysaa, ilaahay aayaadkiisii. كم من البشر با إلهي أبوري، قاربا فقرايا، قاربا أغنيايا، قاربا عافمان لغو ديقي، قاربا حنون لغو ابتليي، قاربا فقر لغو امتحامي، قاربا أولاد الله هجاجيي، قاربا أولاد لغبيي، قاربا وحبرشد الله فري، قاربا وحبرشد لغو أتكيي، قاربا إسلام لماذا إلهي قل ديستي، قارنا قال لماذا إلهي أقدره قال لما يكون من أيام. qaar caqligii baa ilaahay siiyey, qaarna caqligaa ilaahay ka qaaday. qaar lixaadkaa loo dhammaystiray, qaarna lixaadkii baa laga naaqusay. ma arkaan, ma maqlaan, ma hadlaan, qaar baana socon aqalada u jiifa. qaar baa aqoon kastay leeyihiin haddana fuqaraaya, qaar baa aqoon aan lahayn haddana ilaahay ka dhiga aqniya iyo maalqabeenno. magaaladeenan ma dadka aqoonta la ugu maal badan mise dadka aqoonta aan lahayn? ya arkuwa ugu lacag badan? ma jaamiciyiinta ugu lacag badan mise dadka aan jaamacadda soo dhigan? halka jawaabade dadka waxba soo dhigan ba ugu dhaqaalo badan. dhalinyaro ardayaan arkay oo markaa bur sheekh jaamacadayna waan dhammaynay, shahaadooyinkii waan haysanaa, shaqana ma hayno. dhalinyaro aada u fikraya buu ahaa. wuxuu ihi cilmigaaga la eegi maayo zamankana ciddaa tahay baa la isweydiiyaa buhi marka horeysaba. soomaaliya la qabiil baa lagu halaagay. markaasaan idhi dibloomkan aqoontaad baratay waa gooni, arsaaqaduna gooni, shaqo iskuma leh. aqoonta baro lama diidan inaad wax barato, inaad dhakhtar noqotaa lama diidayo, inaad injineer noqotaa lama diidayo, inaad maaragtaanay professor aad noqotaa lama diidayo, inaad macaadinta arlada sida loola soo baxa aad noo barataa lama diidayo. laakiin aqoontuna waa gooni, arsaaqaduna waa gooni, arsaaqaduna waa gooni. arsaaqada marka ayaa bixiya waxbarashadaad baranaysid iyo arsaaqadaada cilaaqa kama dhaxaysa ogow. habeenkii ilmaha yar 120 habeen uu jiray caloosha hooyadii uu marxaladaha uu marayay uu nebigu sheegay. 40 hore buu nebigu yihi waa nudfax, 40 dhaxana buu nebigu yihi waa calaqa, waa xinjir yaroo dhiiga, 40 ku xigana buu nebigu yihi waa waslad yaroo hiliba. daadna 120 markuu jiro ayaa malaga loo soo dhiibaa ruuxda oo la yidhahdaa ku afuuf.
habeenkaasa 4 shay ilmaha caloosha gala loo qoro 4 shay arsaaqadiisa habeenkaasa la qori buu nabigu intuu cunayo ajashiisina habeenkaasa la qori maalintuu dhimanayo labiyo dhidig midku ahaanayna habeenkaasa la qori أهل النار يا أهل الجنة متكو هنا هبين كاب الله قرب رسولك يقول صلى الله عليه وسلم كوصل لي رسولك أرزاقات هذه هبين كاب الله قري أنت يتعين إلهي وكاغري أنت تدريد كل ولا ناس هبين كاب الله قري أنت تجري سنة ولا كاغري بل كور رمسدين ولش أي نقول لهيد هذه المكستو النور دلنا يا ونور دلنا لها أساقو تاريخ أو لمن أيانا هلك أو قرنتها سين نلش نقول له بلك جوابه وضيبا إنا كورن لها أذر ده مبروك وان بقلا إنا ويل أتكو عرته أذر ومبروك لكن لو يكون لويل لباتك بيش الله لباتك يقول دي من يا بكو قرن بيقول معال السمين لا بلك وربا تاريخنا دمشق لقى غريب الرحمة طبعا ولو بقول سنة كدي هذا اللي بقول لهين الدمنا يسوع وهلك كذا قرنا لهين والولي والبهاري مرق بكسيد لهين لكن إلهي وكريم وكقري صدوا عجش هذا وقري أيوة أرزاقنا إلهي كوقري من ما أنت أقلتي إلى الدمنا يسوي الدياد البيئة يباد يبريس يهلب يعاني يهواء كل هيد هذه اللي قصين لها الكيد يقول لها بالشيك إمسك بخار بدو بعن لهين ما يلتين الله شو حركات الله شو واحد معاك ندنك كل هذا أجسنا والله قاريي أرزاقنا والله قاريي مركزا ولي بالله شيء والله قايري أرزاق هذه يقانت هذا سكما حدنا سيد النبي نبي قوي مدايري لبننا ولا على عيا هايين من نفر السماء يقام بوها من المسجد النبي قو فدين جري ونبي علمك كرر بجري عليه الصلاة والسلام مركاكي حرف الله هاي مقالة وشقته جري أي النبي كد دعوي عليه الصلاة والسلام وحو كد دعوي ولكن حرس الله داني قوم بصوت تبع يقول يسقون هل كان مسكيت كأم بفرديا وحو النبي يقول جواب لعلك ترزق به بكيري لعلك ترزق به وحقيقة أو ضرب النبي يقول لي هي إن أرزاق قدب إلهي سكك كوسين يفلقيس توكلك تلا صار شد إلهي وتلا صارتي اعتكاف كان مسكيتك وكجرو برشد إلهي دين تي سو برنا يو تقوى مسكيتك كسو حريسي أيا الله يا با أرزاق دين إلهي كوكو فضيدني معناه قوي يا سلاس مركا أقولت مر بدينينو وان برانينا أقول إيوه الله برتنا مدينينو لكن وحنا باهنا قف وحبرنا يا إنه مركو الرسول ونقد قف إلهي سيقانا دكتور إلهي يقانا إنجنير إلهي يقانا تاجر إلهي يقانا مسؤول إلهي يقانا فقير إلهي يقانا عاقل إلهي يقانا وبس إلهي يقانا وأنا نقد قف إلهي يقانا نتاجر oo ganacsada ayaa jamaaca ku ziyaaratay xafiiskiisii shaashad weyn baa hortaala xafiis kasta oo shaqaalihiisu ay fadhiyaan kaamera baa u dul saaran halka buu kala socdaa si fiican hadalka u dhageysta markaas ay jamaacaddii kolkay u xadiiseen bay ku yiraahdeen shaashadan aad kolba mar eegaysid dadkuna dhex soo socdaan wuxuu waa shaqaalihii baan halka shaqaalahaygii baan halka kala socdaa buu yiri oo gabdhaha ku jira maxad gabdhaha u khaawisi buu yiri markii qaar ku shalmadaaba ka dhacaysay wuxuu yiri si kale oo lagu aaminaa ma jirto kaameraga bay ka baqayaan deedna xoolahaygii iyo shaqadeedii bay nabad galaysay buu yiri niga dadka muxuu ka aaminsan yahay marka uu shaqeynayo oo dhan وتوب إني وإدعان كاميرا waxaan u wada dul dhigay waa in xoolaha igu ay badbaadaan
saasuu ka aaminsan yahay soo maha inte muxuu ka aaminsan yahay waa tuug qof la aamini karaa ma jirto mid baa mid sidaa ku yidhi dadka maanta wax la aamini karaa maba jira buu yidhi kaad meel u dhiibtaba uu ku dhacayaa buu yidhi ayib shaqaalihiisii qof ka mida ayaa maalin isagana meel lagula kulmo markaasaa lagu yidhi maalin baan sarfiiska kugu soo maray yaad u shaqaysaa shirkaddaa baan ka shaqeeyaa imse sanaa ka shaqaysaa 7 sano lacag muxuu ini siiyaa intaa maalintaad shaqada bilowday ilaa 7 sano lacagtaadu ma intaa unba haa waa intaa oo nima biiriyo sanad kasta wuxuu nagu yidhaahdaa waan nii biirin noomana biiriyo ballan kasta sanad walba ballan buu noo qaadaa ballanna ma ilaaliyo waana beenaale bay yidhahdeen iyo kii shaqaalihii waxay isaga ka aaminsan yihiin waa beenaala ninkaasi isagii iyaga wuxuu ka aaminsan yahay waa tuug haddana ninkii maalin dambaan aragnay bal warano ma fiicantaha shirkaddii way kacdo waan xidhay buu yidhi maxaad u xidhay wax dad aan aaminaan weynay buu yidhi khalaas dadkii ammaano male buu yidhi waxaa laga yaabaa dadka u shaqaynaya oo dhan inay jaamacada ka soo baxeen isagani inuu jaamacad soo dhigtaan laga yaabaa laakiin ammaano qofki inuu yeesho inuu ballan buuxiyo uu noqdo inuu rusheego uu noqdo inuu cadaalad falo uu noqdo inuu dabeecad wanaagsano uu noqdo ma dibloom bay u baahan tahay mise iimaan bay u baahan tahay bal ii sheega iiga jawaaba qofku inuu rusheego noqdo uu ballan buuxiye uu noqdo ballan ilaaliye dabeecad wanaagsane cadaalad sameeye ixsaan sameeye inuu noqdo ma dibloom buu u baahan yahay ma maqasheen weli jaamacad la yidhi ninka ka soo baxa wuxuu noqonaya nin ammaano xaafida nin rusheege ah nin ballan buuxiye ah nin cadaalad sameeye ah ma maqasheen ma jirtaa jaamacad caynkaas ma jirto way jirtaa waa jaamacaddii nebi maxamed alayh isalaatu wasalaam cumar bnu khadaab radia allahu canhu oo xajka u socda ayaa waxay arkeen nin marka aada u soo socdo faraska aada u soo eryanaya marka cumar bnu khadaab baa eego wuxuu yihi ninkaasi kolley annaku noo socdaayo joogsada buu yidhi uu joojiyey cumar ciidankii ninkii oo aada u daalan oo aada u naxsan baa markaa cumar soo gaadhay cumar hortiisu ku dhacay cumar baa markaa ku yidhi ma nin cadow eryanayaan oo cabsoonaya ayaa tahay oon ku magan gelinaa mise nin dayn lagu leeyahay oo daynkii bixin kari waayey oo u baahan in la caawiyo ayaa tahay mise nin naf bini aadana soo gooyey oo xaqdarro ku soo dilay baa tahay markaasuu intaa midna mayhi buu yidhi waxaan ka imide buu yihi basra ayaan ka imide basra waa magaalo ku taalla ciraaq abaa muusa alashcari baa halkaa amiir nooga ahaa haye halkaas anoo jooguu dembi iga dhacay bau dembiga kaa dhacay muxuu yahay khamri baan cabbay buu yihi dabeedna abaa muusa alashcari baa intuu qabtay buu iga jaray buu yihi xadkuu imariyey haye timihiina uu iga xiiray haye farasna intuu igu qaaday buu magaaladii basre i dhex mariyo wuxuu yidhi ninkaa halla cunina oo halla fadhiisanina oo halla saaxiibina oo ka dheeraada buu yidhi wejigaygiibu iga madoobeeyey buu yidhi markaa naftaydii 3 mid bay iigu sheekaysay inaan sameeyo imaa inaan abaa muusa alashcari intoon gaado aan qoorta ka gooyo imaa inaan gaalada intoon iskaga biiro waxay cabbayaanna aan la cabbo waxay cunayaanna aan la cuno iyo kana aan ka mid noqdo imaa inaan adiga kuu imaadood iga qabatid amiirka muuminiinta marka cumar bnu khadaab ayaa yidhi radia allaahu canhu inaad ii timiday ilaahay baa ku waafajiyey buu yidhi inaad gaalo u tagta ha yeelin inaad abaa muusa alashcari isagana intood aad u dhumata aada dishaana ha yeelin mar haddaad aniga isoo gaadhay buu yidhi aniguna arrintaada haddaan shaqo ka qabanaya bui hawsha waan qaban buu yidhi warqad buu qoray warqadda nin kale cumar uma dhiibin isagiibuu warqadda ugu dhiibay isagii ku dheh amiir almuuminiina cumar agtiisaan ka socdaa uu ku soo salaamayey
waxaad ku tidhaahdaa haddaad amiirkaagii aan ahay warqadday ku qoran tahay oo xaqa aan kugu leeyahay abaa muusa alashcari oo aad qadarinaysid warqadda ninkaa uu kuu keenay dhegayso qaabil buu ku soo amray uu soo noqday ninkii cumar weliba ninka ma sii dayn faras buu siiyey lacag buu siiyey dhar buu siiyey kolkuu muddo welibana uu hayey ayuu yidhi haddaba imanka soco u tag basre ayuu markaa ugu yimid abaa muusa alashcari oo khudbadaynaya markaasuu amiirkii muuminiinta cumar baa i soo diray ajiib istaagay uu ku soo salaamayey warqadaana uu soo dhiibay akhrisa buu ka yidhi warqadii buu akhristay ninka faraskaaga saar magaaladii aad la dhex martay marka hore la dhex mar waxaad ku tidhaahdaa la fadhiista la cunteeya la saaxiiba waa walaalkiin uu toobad keenay toobaddu addoonka ilaahay bay ka dhaxaysaa wixii horeen hadal iga dhaco o dhanna waan ka noqday ee walaalkiin ma aragtaan cafiye anna waan cafiye dheh abaa muusa alashcariy radia allaahu canhu sidii amiirkiisu uu ku amray buu yeelay halkii intuu ninka ugu yimid uu madaxa ka dhunkaday faraskiisii buu saaray magaaladii uu sidaa usoo dhex mariyey waa walaalkiin uu toobad keenay cumar bnu khadaab buu u tegey cumar buu fariintaa inooga soo qaaday walaalkiin la cunteeya oo la fadhiista oo la saaxiiba oo la sheekaysta oo la noolaada waa taa dadnimadu mas-uul ilaahay garanaya dhakhtar ilaahay garanaya injineer ilaahay garanaya professor ilaahay garanaya maalqabeen ilaahay garanaya faqiir ilaahay garanaya abaa hurayra radia allaahu canhu gaajo daraaddeed buu masjidka nebiga marka salaada laga dareero ayuu iridda nebigu uu ka baxayuu ku dhici jiray ninka reer miyiga ee magaalada madiine ku cusub ayaa intuu isku dultaaga odhan jiray war maad waalan tahay meesha ka kax markaabuu odhan jiray ma waali abaa hurayra wuxuu leey waali maa waxaan la jiifee gaajaan la jiifaa buu yidhi cumar baa ii yimiday markaasaan cumar ku yidhi aayadda qur-aanka halkaa aayadda qur-aanka halkay ku soo degtay cumarow markaasuu abaa hurayra wuxuu yidhi marka cumar aayadda qur-aanka aan weydiinayey garasho la-aanigama yahayn waxay iga ahayd cumar wejigaaga intuu soo fiiriyo gaajada wejigaaga ku taalla intuu eego ha garto oo ha ku yidhaahdo abaa hurayra gaajaa ku hayse kaale ila soo xeraado ila soo cashee imuu fahmina aayaddii buu iiga jawaabay buu yidhi yaalka ku soo degtay haddana abubakar baa yimid abubakar waadna bal aayaddaa iiga jawaab halkay ku soo degtay abubakarna ima garanoo ima fahmina aayaddii buu iiga jawaabay buu yidhi waa abaa hurayra baahi baa haysa 3 maalmood iyo 3 habeen afkiisa cunto ma gelin haddana abibakar iyo cumar inuu baahi u sheegta buu ayuu ka qarsanaya inagana abaar oonan iman baa dadku abaar sii sheegaan waxay noqotay gaajadii wax lagu baayac mushtaray moogta soo maha inte soo maha xanuunka waaga dhawata la buunbuuninaya adduunka la sheegsheegaaye mashruuc gaalow inakaba naguma socdoba xanuunkaas naguma socdo cuquubo meel kale ku socota haddaad u yeerata ka waran adigu halkii beryihii hore dadku odhan jireen balaayo markay maqlaan meleblayo balaaya ku dhacday ayaa laga alla beri jiro la odhan jiray balaayo baydh iminkana maanta maxaa la leeyahay balaayo soo baydh xanuunka annaka intaabuu nagaga dhacay intaabaa ka bogsatay intaabaa u dhimatay maxaad ka sheegi muminku balaayo ma sheego muminku nicmadda ilaahay buu ka sheekeeyaa wa amaa binicmati rabbika faxadith nicamta laga sheekeeyaa balaayada lagama sheekeeyo balaayada waa la qarsadaa haddaad balaayo kugu dhacday aad ka sheekaysid waxay ka dhigan tahay nin ilaahay ka cabanayo leh ilaahay baa waxa uu dhibaato igu sameeyey ayaa iga qabta ayaa ilaahay kaa qaban war mahayad baa ilaahay kaa qaban bal sheeg muminku balaayada ma sheego abaa hurayra gaajadiisii cumar uma sheegin abibakarna uma sheegin uu qarsanayey laakiin wuxuu balsiiro farsamo leh ayuu wejigaaga un bal kolkay eegaan ha kaa dareemaan oo ha ku yidhaahdaan abaa hurayrow marka horeba ahlu sufaad ahayde oo magaalada madiine qareen iyo qarabo kumaad lahayne waad gaajootay ibna mari ha ku yidhaahdaan iyo kiina may fahmin
walaakiin nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam markuu nebigu igu soo baxayba halkaasuu nebigu ka fahmay, halkaa buu ka fahmay. yaa abaa hurayra kaale caawa aniga ila soo cashee buu ka yidhi, kaale ila soo cashee. koob caanuu nebigu ugu yimid reerkiisii, koob caanaa maxaa yaalla, koob caanaa ku yaalla nebi allow. yaa abaa hurayra maskiidkii ku noqo, ahlu sufiyo dhan inoogu wadeer caawa caanaha inala cabaane. waa koob caanaha. abaa hurayra nebi maxamed hadalkiisa maya ma odhan karo, laakiin niyaddaan ka idhi buu yidhi koobkan caanaha adigooma kugu fiicnaaye miyaa laguu dhiibaa, ha ku cibaadaysatid laba habeene. ahlu sufuhuna waa raggaad garanaysidee maskiidka deganaayo ayaga laftigoogu maalmahaydin waxba cunin. dee kollay nebigu kolkuu u yeedho ay yimaadaan ay fadhiistaan, aduu koodhadana abaa hurayra oo caanaha qaadoo siisii ka u horeeye la siiya himin buu. laakiin nebi maxamed hadalkiisa maya may odhanayna way u yeedhay. aqalkii markay fadhiisteenna sidii uu ka malaynayay meesha u dhacday. yaa abaa hurayra buu nebigu uhi koobka caanaha qaad, ninka ugu horeeyana u dhiib, ha kana qaadin buuhi ilaa isagu kuu soo celiye mooyaane. waa koob caanaha. ragga loo yeedhana waa raggee? ahlu sufa. kii horeeya markaasuu u dhiibay, waan eegay waa caano halkoogii jooga. kii kalean u dhiibay halkoogii, 90-70 nin iska dhe. markaasuu nebigu yidhi yaa abaa hurayra ayaa hadhay ii sheeg. yaa rasuulallah adigii aniga hadh, fadhiiso aduu cab. waan cabbi ku celi, haddana waan cabbi ku celi, ilaa aan idhaahdo ilaaha xaqa kula soo saaray baan ku dhaartee caanaha meelay caloosheeda ay ka maraan oo bannaan haddeeto layguma hadhin baan idhi buu yidhi. deedna markaasaan hambadii buu nebigu qaatay, hambadii buu nebigu cabay alayhi salatu wasalaam. waxaan ka wadaa fuqaradoodu baahi way qabeen, laakiin baahidooda ma sheeganayn, baahidooda iimaankaa daboolayay, iimaankaa daboolayay. wallaahi waxaan u baahannahay maanta ummadda in iimaanka loo dhiso, ummadda in ilaahay lagu xidho, ummadda in aakhirada loo jeediyo, ummadda in diintooda macaanka diintu ay leedahay loo sheego. taan maanta u baahannahay waa taas. ducaad ma noqonaa mise cubaad baan noqonaa? bal kala doorta. yaa u diyaar inuu noqdo daaci caabida. waman axsanu qawla miman dacaa ila allahi wacamila. dacaa ila allahi, dacaa baa horeysa, qum facandir baa horeysa, wacamila saalixanna waa la dambaysiiyey. aadaankaa horeeya, salaadaa ku xigta, dacwadaa horeysa, camalka wanaagsan baa ku xiga. nebi baa adduunka imanaya, risaalad baa loo soo dhiibayaa, dacwad buu bilaabayaa. dacwadda markuu bilaabo ayaa ummaddu diinta u soo jeesanaysaa, markaasaa mujtamaca noloshooda diini ka muuqanaysaa. lidaalika dacwaddu asaaska diinteenna islaamka weeyaan. markii dacwad la helo ayaa ummaddu diinta jeclaan, deedna diinta inay bartaan oo ay ku camal falaan oo ay ku dhaqmaan, markaasaa markaa ummaddu ay diinta macaankeyga dhadhamin. insha allah dhahada diinta dadaalkeega, waktigeenna, maalkeenna, dhaqaalaheenna, caqligeenna, cimrigeenna inaan diinta gashano soo diyaar uma nihin. wallaahi dacwaddu waa naxariis, dacwaddu waa raxmad. ummadoo masaajida loogu yeedhaa waa raxmad, ummadoo qur-aanka la baraa waa raxmad, ummadda oo cilmiga la baraa waa raxmad, ummadda oo masaajida loogu yeedhaa waa raxmad, ummadda oo ilaahay xaggiisa loogu yeedhaa waa dadka dhisidoodii. war haddii magaalada oo dhan wada fooqag laga wada dhigo, oo wadooyinkao dhanna lanooga dhigo muraayado, oo wadanka oo dhanna qof aanan shaqayn la helo, oo dadkao dhan wada shaqeeyaan, laakiin dadkii ay been ku macaamaloodaan, oo khiyaanadii ay badato, oo ammaanadii ay yaraato, oo qiibadii ay badato, oo dulmigii uu bato, oo zinadii ay badato, oo fisqigii uu bato, oo fujuurkii uu bato, maan hore u marnay mise waan dib u dhacnay? bal iga jawaaba. daarihii baan dhisnay, wadooyinkii baan dhisnay, mashaariic horumarneed baan samaynay, jaamacadihii baa batay, khariijiintii baa badatay, jaamiciyiintii baa batay, hoteeladii baa batay, warshadihii baa batay, laakiin dadkii ammaano male, run sheeg maaha, ammaano male, run ma sheegayaan, ballan ma ilaalinayaan, cadaalad ma samaynayaan, ixsaan ma samaynayaan, isma jeclo, isku damqani maayaan. maan horu marnay mise waan hoos u dhacnay? iliga jawaaba.
hoos u dhacnay idan hadday aqaladeennii baadiyaha ay yihiin oon ari iyo geel aan dhaqanayno oon beeraha falanayno laakiin dadku ay yihiin dad ilaahay yaqaana dad ammaano leh dad khayr badan dad run sheegayaala dad cadaaladda ilaalinaya dad isku naxariisanaya dad isku damqanaya dad xumaanta ka dhiidhinaya dad wanaagga jecel oo xumaanta necab hadday yihiin waan horumarnay ogaada horumarku maaha dhiska horumara horumarku waa bini aadamka horumara weeyaan diintu markaa dadkay dhisaysaa daacigu wuxuu ka shaqaynayaa dib u dhiskii dadka ninka madaxa markay doorasho soo dhawaato madaxdu markay doorashada galayaan nin kastoo siyaasi wuxuu yidhaahdaa wadooyinkan samaynaya mashaariic horumarneed baan samaynaya tacliintaan bilaash ka dhigaya tacliintaan kor u qaadaya dhakhtaradaan badinaya caafimaadkan bilaash ka dhigaya warshado ayaan samaynaya car nin madaxa oo odhan kara dadkaan hagaajinaya ma maqasheen iga jawaaba war ma maqasheen nin madaxweynaha oo yidhi dadka siday ku hagaagi lahaayeen baan ka shaqaynaya ma dhacda inuu yidhahdo may waayo fannigan dadka lagu hagaajinayo fanniga madaxda maaha waa fanniga culummada weeyaan waa fanniga ducaadda weeyaan waana taan u baahannahay maanta waa ta aan laanahay weeyaan halkaa xadiis baan ku soo khatamayaa alaa ukhbirukum bikhayrikum min sharikum qaaluu balaa ya rasuula allah qaala khayrukum man yurja khayruhu wayumanu sharuhu washarukum man laa yurja khayruhu walaa yumanu sharuhu maynii sheegaa buu nebigu yidhi kiina iniigu khayr badan iyo kiina iniigu shar badan markaasay saxaabadu yidhahdeen ha markaa buu nebigu yidhi kiina iniigu khayr badan waa ninka khayrkiisa la rajeeyo sharkiisana ummaddu ay ka nabad gasho khayrkiisa see khayrkiisa loo rajeeyaa ilmahaagiibaa maalan ilmo yar wax ku dhiftay markaasaa tiri war ilmahaygiibaa maanta ilmo yaroo kala cawiray oo ilmaha ayaa dhalay odaygii hebel baa dhalay markaas odayga ahaa war odaygaas waa oday helulkhayra waa oday miskiina waa oday macquul ah waa oday ixsaan badan marna isfahmi waayi maysaan waa nin la isfahmo waa nin cafis badan anigay beri arrinna dhex marto arrintii si khayr loo wanaagsan buu ku dhameeyey war ninkaa nin shar laga filanaya maahine khayr baa laga filanaya inoo geeya kaasay nigu khayr badan buu nebigu yidhi ka kalena waa kae khayrkiisa aanan la rajayn ma ilmahaagiibaa ilmihiisa wax gaadhsiiyey haa ilaahay baad leedahay kaabay arrini kaa gashay miyaa haa ilaahay waxa kaa siiyo ilaahay baad adiguna leedahay war ii raaca oo bal ninkana dhexdhexaadi laysma fahmaba kaas waa nin tiisa unay la quman tahay garna ma gasho garna kama baxdo sharkiisana ilaahay baan ka magan gallay waa mithaal yani xadiiskaasi eeg waa xadiis xasan ah dadka khayrka badan le nebigu sidaasuu sheegay iyo dadka sharka badan leh marka haddaan diinta ka shaqayno dadka khayrka badan leh ee khayrka jecel ee ixsaanka badan ee dulqaadka badan ee wanaagga jecel ee cafiska badan ayaa mujtamaceenna ku badanaya haddaan diinta iyo dacwadda ka shaqayni weyno iimaanka hoos u dhaadhacaya taqwadaa yaraan alla ka baqaa yaraan deedna markaa waxaa kor maraya dadkii khayrka badnaa waxaa ka badanaya dadkee kafadda miisaanka taariku salaaga xaggan haddii la saaro maanta iyo dadka salaada ilaaliya iyo ma badan war kafadda tee culus taariku salaaga cuslaanaya soo ma kafadda khayr dadka khayrka badan leh iyo dadka sharka badan leh maanta mujtamaceen ayaa ku badan meel walba caalamka waxa maxaa keenay waa ka shaqayn la'aanta aan diinta ka shaqayni weynay ayaa dadnimadii hoos u dhacaysaa hoos adduunyadiina kor baa u socotaa maanta marka ilaahay kuwa diinta ilaahay u dadaala ee barta ee ku camalfala ee ka shaqeeya ee ilaahay khayr ugu khatimo allah inaga yeelo soo diyaar ma nihin insha allah dembigeenna allaha dhaaf dembiga waalidiinteenna allaha dhaaf diinta allah inoo macaaneeyo maralkeenna allaha shaafiyo mowtaadkeenna allaha u naxariisto amni iimaanka allah inoo ziyaadiyo
dad badan oo walaalaheenu muslimiin ayaa ducadoon ah oo muraado leh mid walba muraadkiisa oo macsiyo lahayn ilaahay gacanta midig ha ka siiyo dad badan baa xanuun ka cabanayo meel walba nooga soo duceeya leh wixii xanuunsan caafimaad sariic Allah ha siiyo wixii kurbasana kurbada Allah ha ka faydo amni iimaankana Allah inoo ziyaadiyo muslimiinta meel joogan muwaafiqiin midnimana Allah ha siiyo sallallahu ala sayyidina Muhammad